أعزائي المشاهدين، معنا كابتن نادي وفريق صومالي ويك القادم من لندن العاصمة البريطانية بزيارة خاصة لأبناء الجالية الصومالية في الكويت اللي راح يستضيفونا إن شاء الله. كابتن إبراهيم، أول شيء اسم كابتن إبراهيم؟ اسمي إبراهيم محمد. إبراهيم محمد، قول لنا كابتن إبراهيم، شلون شفت انطباعاتك الأولى أول ما وصلت يعني للكويت؟ يعني شلون شفت الاستقبال؟ شلون؟ والله كويس، يعني محل كويس. صوماليا كويت waa meel aad u wanaagsan. alxamdulilah dadkoodana aad u fiican yihiin, especially Soomaalida si aad iyo aad ay noo dhaweeyeen, dad oo aad iyo aad u niyad fiican weeyaan. alxamdulilah dad si ku treat gareynayaan waa very human, waa dad oo aad u fiican. يعني dadka kalena weli ma arkin carabka, laakiin I hope inay same inay ان شاء الله هم طيبين ما شاء الله. كابتن ابراهيم، كلمنا عن الفريق، يعني شلون كان استعدادكم قبل ما تجون الكويت؟ يعني قلنا نبذه بسيطه عن فريق صومالي ويك، شلون كانت الاستعدادات اللي كانت قبل الزياره هذه للكويت؟ Somali Week ciyaartoyda Ingiriiska tournament ay ka qabtaan. kooxyaal badan ayaa ka jiro, so kooxyaasha waxa waaye ciyaartoy laga soo xulaa kuwa ugu fiican. So ciyaartoyda last year waa la soo xulay, Dubai ayaa tagnay, ma ciyaartoy aad u fiican aan wadanay. 3 games aa ciyaarnay, alxamdulilah 3 game baan ku badinay. haddana this year is totally different. ciyaartoy oo aad u yaryar aan ugu jiro, oo da'dooda aad u yaryar, qaar oo experience laha ku jirto. حتى ان شاء الله يعني waxaan rajaynaynaa in hortaas different Kuwait and Dubai totally different because treatmentka dadka si noo dhaweeyeen iyo ciyaartoydana weli ma la ciyaarin, laakiin sida aan ku maqalnay waa Soomaalida iyo Carabta u dhaxaynaba waa very strong side aan lahayn. So anagana waa our best team baan soo xilnay sidii oo maaragta oo guul aan dalka Ingiriiska aan geli lahayn. طيب قلنا يعني نبذه بسيطه عن كيف كونتوا الفريق هذا صومالي ويك، كيف شكلتوه، يعني كيف كانت بدايه الفريق هذا؟ سيد وسميسان نحن كيلي سيد يعني وسميسان فريق فكرته خلاص صار فكرته well Somali Week basically Europe waxaa la sameeyaa North America, week Canada America, يعني tournament ay sameeyaan. laakiin tournamentka wax kale lama dhihi karo inay u bixiyaan Somali Week anaga Ingiriis kale nalma dhaho, xataa North America isticmaalaan. waa weeki Soomaalida, waa weeki Soomaalida oo kubadda ciyaarayaan, iskala basketballka oo anything other sport. taas ahana loogu bixiyay Somali Week. فكره جميله، فكره يعني oo isku yimaadeen isku kaashadeen dadka Soomaalida. والله ان شاء الله اول شيء اليوم راح تلعبون مع نادي الساحل الكويتي، الساحل بذل العيال. نادي الساحل ان شاء الله راح تلعبون مع نادي الساحل في ابو حليفه. نادي الساحل يعني فريق يعني هو دائما يجي بالمرتبه يعني المراتب الاخيره، يعني ليس بفريق قوي، بس هو بطل درجه، كان بطل الدرجه الاولى، يعني مو الدرجه الممتازه، الدرجه الاولى كان هو البطل هذا نادي الساحل. فان شاء الله يعني نتمنى لكم. طيب كلمنا ابراهيم كلمنا عن المباراه يوم السبت مع الجاليه الصوماليه. مباراة كسبت ذا العيال في جالية الصومالية. كيف تشوفون هذه المباراة؟ يعني كيف احساسك؟ يعني شعور هذيك يعني لما صومالي كويت عن صومالي يوروب. كيف الاحساس يعني راح يكون؟ الاحساس يعني هو احساسك هو different. waxay ku tahay Dubai markaan Dubai markaan tagnay koox oo weak oo strong ahayna oo baxnay oo daciif ah markaan tagnay we were really disappointed.